بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يلكسر وهذا أخبارات حقت عيارها qodobada aan kugu soo gudbin doonana waxa kamid ah kooxda Atletico Madrid oo xaqiijisay in ciyaaryahankooda Antoine Griezmann uu ku biirayo kooxda Barcelona ee dalka Spain ka dhisan. madaxweynaha kooxda Barcelona oo sheegay in ay maamulkiisu og yihiin in Neymar Jr uu isaga tagayo xagaagan kooxda Paris Saint-Germain. wakiilka Paul Pogba oo xaqiijiyay in ciyaaryahanku uu doonayo inuu isaga tago kooxda Manchester United xagaagan isla markaana uu daydayanayo koox kale uu ku biiro. madaxweynaha kooxda Lille ee dalka Faransiiska ka dhisan waxa uu xaqiijiyay in kooxda Liverpool ee dalka Ingiriisku ay markaa wada hadal kula jirto ciyaaryahankooda Nicolas Pepe. macalinka cusub ee kooxda Chelsea Super Frank Lampard oo tababarkii ugu horeeyay ee kooxda Chelsea bixiyay. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin hayaa Daawud soo dhawaada. kooxda Atletico Madrid ayaa xaqiijisay in ciyaaryahankooda Antoine Griezmann uu ku biirayo kooxda Barcelona ee dalkaasi Spain ka dhisan. war-saxaafadeed ay soo saartay kooxdu ayay ku tiri Barcelona ayaa la kulantay ciyaaryahankeena Antoine Griezmann intii lagu guda jiray xil ciyaareedkii hore, waxaana markaasi ay Atletico Madrid diiday in uu ciyaaryahanku halka u dhaqaaqo. laakiin haatan waxa ay leedahay Atletico Madrid wararku waa dhab oo waxa uu ku biiraya kooxda Barcelona ciyaaryahankeena Antoine Griezmann iyadoo xil ciyaareedkanba uu si rasmi ah markaa ugu biirayo. Jose Mario madaxweynaha kooxda Barcelona ayaa yiri labada kooxood ee Barcelona iyo Atletico Madrid waxa ay wada xaajood ka leeyihiin iibka ciyaaryahanka Atletico Madrid ee Antoine Griezmann kaasoo aanu doonayno in aan la soo wareegno, ayuu yiri madaxweynaha Barcelona. 14 bishii May ayuu Antoine Griezmann u sheegay maamulka sare ee kooxdiisa in uu doonayo inuu isaga baxo kooxda Atletico Madrid oo markaa gaaray go'aankaasi. laakiin haatan waxa ay markaasi soo dhamaaday wax walba oo xan ah oo lalahaa ciyaartooygu kooxibil ayuu ku biiraya. Barcelona iyo Atletico Madrid ayaa labaduba xaqiijiyay in ciyaaryahan Antoine Griezmann uu xagaagan ku biirayo kooxda Barcelona ee dalkaasi Spain ka dhisan. 120 milyan oo gini ayay ku qaadanaysaa Barcelona ciyaaryahankan Antoine Griezmann iyadoo xidigan xulka qaranka Faransiisku uu markaa ka garab ciyaari doono Leo Messi oo Barcelona ay ku duusho. wakiilka xidiga xulka qaranka Faransiiska iyo kooxda Manchester United ee Paul Pogba ninka lagu magacaabo Mino Raiola ayaa xaqiijiyay in ciyaaryahanku uu doonayo inuu xagaagan isaga tago kooxda Manchester United. Mino Raiola oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa xaqiijiyay in ciyaaryahan Paul Pogba ay ka go'an tahay in uu isaga tago kooxdiisa Old Trafford ku dhashay ee Manchester United xagaagan haatan ciyaartooyda la kala iibsanayna oo qayb ka noqdo. Paul Pogba ayaa maalmihii dambe waxa la hadalhayay in uu doonayo inuu ka tago kooxdiisa Manchester United, inkastoo haatan uu wakiilkiisu xaqiijiyay in ciyaaryahanku uu doonayo in la iibiyo. dhowr kooxood waaweyn oo qaaradda Yurub ka dhisan ayaa daneynaya ciyaaryahankan inay la wareegaan. waxaa kamid ah Real Madrid, Juventus iyo Paris Saint-Germain oo wadankiisa Faransa ka dhisan. Real Madrid ayaa dalab 75 milyan ah oo lagu daray Gareth Bale ama Isco waxa ay u gudbisay kooxda Manchester United si ay ula saxiixato ciyaaryahan Paul Pogba. majalada Manchester Evening News ayaa ku waramaysa in Real Madrid ay rajeynayso in ay la saxiixato xidiga qadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba iyadoo heshiiskiisa markaasi qayb kaga dhigaysa Gareth Bale ama Isco sida markaasi ay majaladu daabacayso. 75 milyan oo gini ayaana markaasi inta u sii dheer United. arrinkan dalabka cusub ayaana ku soo aaday iyadoo oo markaa wakiilka ciyaaryahankani uu ku dhawaaqay in uu ciyaaryahanku go'aan ku gaaray inuu isaga tago kooxda Manchester United. madaxweynaha kooxda Barcelona waxa uu xaqiijiyay in ay maamulkiisu og yihiin. madaxweynaha kooxda Barcelona oo shir jiraayad qabtay ayaa sheegay in kooxdiisu ay og tahay in markaa Neymar Jr uu doonayo inuu isaga tago kooxda Paris Saint-Germain, inkastoo uusan xaqiijin in Barcelona ciyaaryahanka ay la soo wareegayso. madaxweynaha Barcelona ayaa waxa uu yiri waxaan ognahay in uu doonayo ciyaaryahan Neymar Jr inuu isaga tago PSG, laakiin ma ogi haddii markaa PSG ay samayn doonto inay isaga fasaxdo. Neymar ayaa xaqiijiyay in markaasi uu doonayo inuu isaga tago Paris Saint-Germain oo markaa 2 sanadood oo halka joogay isagoo Barcelona uga soo biiray 220 milyan oo euro. wuxuu yiri waan ognahay Neymar waxa uu doonayaa inuu ka tago PSG,
laakiin ma ogi haddii PSG ay ogolaan doonto in ay u ogolaanayso ama ay doonayso waxa isaga uu yeelayo. Barcelona ayaa leeyahay waxa ay doonaysaa in ay qayb ka dhigto la soo wareegitaanka Neymar Jr. dhowr ciyaartooy oo ay ka mid yihiin Philippe Coutinho iyo sidoo kale Ousmane Dembele oo markaa ka mid ah safka koowaad ee kooxda Barcelona. ciyaaryahankan ee xulka qaranka Brazil iyo kooxda Paris Saint-Germain Neymar Jr. ayaa muddooyinkii dambe waxa aad loola xiriirinayay in uu dib ugu laaban doono garoonka Nou Camp ee kooxda Barcelona, waxaana markaa haatan madaxweynihii Barcelona uu leeyahaba waanu ognahay waxa uu doonayaa inuu isaga tago kooxdiisa PSG, laakiin waxaanan ogeyn in PSG ay u ogolaan doonto isagu in uu halka uu doonayo aado. Neymar Jr. ayaa haatan waxa uu yahay ciyaaryahanka ugu qaalisan dunida ee lacagta inta leeg ay markaa kooxu ku iibsatay, waana rikoor asaga u yaala, waxaana haatan PSG ay doonaysaa baa laleeyahay mar kale in ay ka sii dhigto ciyaaryahanka ugu qaalisan dunida oo 225 milyan oo geni ayay ku doonaysaa in ay markaa Barcelona ku qaadato hadiiba uu dib ugu laabanayo kooxdiisii hore ee Barca. madaxweynaha kooxda Lille ee dalka Faransiiska ka dhisan ayaa xaqiijiyay in kooxda Liverpool ay wada hadal kula jirto ciyaaryahankooda Nicolas Pepe, kaasoo si gaar ah uga hadlayso inuu markaa ku biiro iyaga. 24 sano jirkan heerka caalamiga ayaa waxa uu markaasi aad loola xiriiriyay muddooyinkii dambaba inuu isaga tagayo kooxda Lille, iyadoo dhowr kooxood oo qaaradda Yurub ka dhisan ay aad u doondoonayaan xidigan. madaxweynaha Lille ninka lagu magacaabo Gerard Lopez ayaa shaaca ka qaaday Liverpool in ay markaa discussion ama ay wada hadal la leedahay Nicolas Pepe, kaasoo si rasmi ah ay u doonayso inay geyso garoonka Anfield ee kooxda Liverpool ay ku dhasho. wuxuu yiri waan ognahay waxa ay doonayaan inay discussion la sameeyaan ama wada hadal ciyaaryahanka, laakiin wuxuu yiri taasi ma ahan wax kooxdu ay ilaa haatan qayb ka tahay wada hadalkaasi. Liverpool ayaa doonaysa in ay si rasmi ah ula soo wareegto ciyaaryahan Nicolas Pepe oo dhanka weerarka ka ciyaara. wuxuu yiri anigu ma doonayo in aan wax ka iraahdo arinta ku saabsan Liverpool iyo wada xaajoodkeeda, laakiin waxaan ognahay oo runa in Liverpool ay wada hadal la leedahay wakiilka xidigeena Nicolas Pepe, taasoo ay ku doonayso in ay markaasi la wareegto xidigan, ayuu yiri madaxweynaha kooxda Lille ninka lagu magacaabo Gerard Lopez. macalinka cusub ee kooxda Chelsea Super Frank Lampard ayaa aaminsan in jiilka cusub ee tababarayaasha Premier League ay markaasi marqaati cad u tahay mustaqbalka tababarayaasha Ingiriiska in ay goor la wareegi doonaan iyagu. kadib markii Lampard loo magacaabay tababaraha Chelsea isbuucii la soo dhaafay, waxa haatan horyaalka Premier League tababarayaal ka ah 7 nin oo u dhashay Ingiriiska, waxaana ay u muuqataa in Premier League uu markaa ku laabanayo horwaantii 90-yadii markaasoo tababarayaasha ajaanibta ahi ay aad ugu yaraayeen. xidiga hore ee Chelsea Super Frank Lampard ayaa qayb ka ahaa jiilka dahabiga ah ee ciyaartooyda Ingiriiska ee bilowgii qarnigan, markaasi ay ku jireen tababaraha haatan ee Steven Gerrard iyo kuwa kale uu ka mid yahay tababaraha Fulham Scott Parker. Super Frank Lampard ayaa bixiyay tababarkiisii ugu horeeyay ee kooxda Chelsea, isagoo markaasi 41 sano jirkani heerka caalamiga qaadanaya tababarkiisii ugu horeeyay ee uu ugu diyaarinayo kooxda kulamada ka horeeya furitaanka horyaalka. bal markaana ciyaarihii laga ciyaaray koobka qaramada qaaradda Afrika ee ka soconaya dalka Masar, xulka qaranka Morocco ayaa wajigaba kala kulmay xulka qaranka ee Benin oo rigoorayaal markaasi uga soo gudbay ama ugu soo baxay quarter finalka koobkan. Morocco ayaana ka hartay. sidoo kale xulka qaranka ee Senegal ayaa dharbaaxo laqsiyay xulka qaranka Uganda, iyadoo oo markaasi Sadio Mane iyo xulkiisa Senegal ay u soo baxeen sideedamaadka koobka African Cup of Nations ee ka soconaya dalka Masar. caawana waxaa laga ciyaari doonaa koobkan qaramada qaaradda Afrika ciyaaro xiiso leh. waxaa ciyaarta ugu xiisaha badani ay caawa dhexmari doontaa xulalka qaramada ee Masar ama Egypt iyo South Africa oo Bafana lagu naynaaso. Nigeria iyo Cameroon ayaa sidoo kale wada ciyaari doona. waxaa kaloo caawa ciyaar xiiso leh ay dhexmari doontaa 4 habeenimo ama 10 habeenimo Argentina iyo Chile oo u tartamaya kaalinta saddexaad ee koobka qaaradda Amerika ee Copa America. ciyaarahaasi caawa ayay dhici doonaan. waxaa kaloo caawa la ciyaari doona England iyo Sweden oo iyana markaasi ciyaar xiiso leh oo dhexmari doonta haweenka England iyo Sweden oo iyana u tartamaya kaalinta saddexaad ee koobka adduunka haweenka ee ka soconaya dalka Faransiiska. daawadayaal wararkii xogta ciyaaraha intaa hayno joogaan. mahadsanidin.